السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka kan isaga ah oo soo gudbinayo anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. Run ahaantii barnaamijka kan isaga ah maanta waxaan jecelnahay inaan ku falanqayno arrimaha ismarawaaga Soomaalida oo had iyo jeer ah kuwa soo noqnoqod leh oo aan dhammaan. run ahaantii aan hor istaagno ismaranwaagaas isaga ah ee nolosha siyaasadeed ee Soomaaliyeed ka jira oo ku ah mid soo noqnoqod ah oo aan dhammaanayn iyo wuxuu ismaranwaagaas uu salka ku hayo uu cuskanayo iyo guud ahaan sidii looga bixi lahaa. Marka la milicsado aan u fiirsanno waaqaca iyo jiritaanka siyaasadeed ee hor yaal maanta haddaynu Soomaali nahay waxaan ka dheregsannahay ismarinwaaga u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliyeed, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka oo ay ku bahoobeen siyaasiyiin kala duwan, qaarkoodna ahaan jireen madaxweynayaal hore iyo wasiirro hore. haddaan hor istaagno ismaranwaagaas isaga ah, nuxurku salka wuxuu ku hayaa iyadoo uu jiro waaqac ama xaalad damaaci siyaasadeed. qof kasta oo siyaasi Soomaaliyeed ah hadduu ahaan jiray qayb ka ahaan jiray maamul hore madaxiis ha noqdo ama wasiir ha ka noqdo ama siyaasi madax bannaan ha noqdo, guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadday ku sugan yihiin xaalad mucaaradnimo iyo hadday ku sugan yihiin inay markaas iyada ah maamulkii dalka gacanta ku hayaan oo hoggaaminayaan, dhammaan guud ahaan labadooda qaybood marka loo fiirsado waa ka siman yihiin arrinkaas damaca siyaasadeed, iyadoo uu yahay nasiib darro mid aan loo cuskan wadiiqad sharciya oo laba muuqaal laga kala soo jeedo. xukuumaddiina ay jeceshahay halkaas inay ku sii darsato oo sii kordhisato micnihii xilligii siyaasadeed ay wax ku maaraysan lahayd oo markaa ku ekaato oo ku nagaato maamulkii isaga ah iyo hoggaankii isaga ah. sidoo kale mucaaradka oo isna had iyo jeer u hanqaltaaga inuu isaguna booskii ama jagadii xukuumadda iyo maamulkaas isaga ee markaa jira goortuu noqdoba ha noqode inuu micnihii maroorsado ama kaalinta maamul ee iyada ah uu la wareego. arrinkaas isaga ah laga soo bilaabo xilligii ay timi xukuumaddii madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed, laga soo bilaabo la soo gaadho xilligii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, la soo gaadho xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, la soo gaadho xilligan isaga ay taaganay madaxweyne Maxamed Cabdalla Maxamed. sidoo kale ayuu muuqaalkaas isaga ah mar walba u soo noqnoqonaya iyadoo mucaaradkii ku tala jiro inuu micnihii ku boodo faraskii maamulka. xukuumaddii iyo hoggaankiina laga la'yahay inay si hufan uga degaan faraskii maamulka. isweydiintu waxay tahay daawade maxaa kala saari kara
labadaa qaybood oo ay ka kooban yihiin siyaasiyiinta Soomaalidu hadday maamul yihiin iyo hadday mucaarad yihiinba maxaa lagu kala saari karaa isqabsi markuu yimaado caalamka ina la midka ah adduun weynahu had iyo jeer arrimaha noocaas oo kale ah waxaa lagu kala saaraa arrin muuqaal sharci ama legacy xambaarsan waa waddada qurah ee lagu kala saaro maranwaaga iyo afgarasho la'aanta hadday mid siyaasadeed tahay iyo hadday mid kaleba tahay dhanka arrimo bulsho ama dhanka arrimaha dhaqaale arrimahaasoo dhan guud ahaan siyaasad dhaqaale bulsho adduun weynuhu wuxuu ku kala saaraa sharci iyo legacy isweydiintu waxay tahay innagu dadkaas iyaga ah ama adduunkaas isaga aynu ku noolnahay ma ka duwannahay waa maya arrinka loo baahnaa oo marar badan oo hore laga sanqariyey waa iyadoo uu meesha ka maqan yahay ka caagan yahay golihii dastuurka ama maxkamaddii dastuurka oo kala saari lahayd isqaqabsiga noocaas oo kale oo soo noqonay nasiib darro sooyaalka siyaasadeed ee Soomaaliyeed laga soo bilaabo 1960kii ilaa maantadaas iyada ah marka laga reebo iyadoo la asaasay maxkamadaas iyada ah ama golahaas isaga ah 2014kii oo xilli gaaban oo dhaafsiisnayn 6 bilood uu ku ekaa arrinkaas balse sooyaalkaas isaga ee dheer laga soo bilaabo xorriyaddii 60kii ilaa maanta guud ahaan golaha kala saari lahaa muranka iyo is-afgaranwaaga siyaasadeed ilaa maanta nasiib darro waa mid maqan waxaa nasiib darro ahna iyaduna in xilliyada ka mid ah golaha shaqadiisa loo cuskan jiray arrinkii la oran jiray maxkamaddii badbaadada qaranka oo ahayd run ahaantii maxkamad siyaasadeed ee military oo dad kiisas siyaasadeed kiisas dhaqaale ama xitaa arrimo bulsho la hor keeni jiray arrinkaasuna uu ahaa nasiib darro dowladdii dhacday 1995dii maamulla kumeer gaar lehel dhashe balse nasiib darro halkiiba arrinku ka sii socday lamana wadin in arrinkaas isaga ah la soo gunaanado oo golaha kala saari lahaa murannada noocaasa ee siyaasadeed la hirgeliyo 2014 ayaa madaxweyne xasan sheikh u xil saaray lawyer Soomaaliyeed oo runtii khibrad dheer leh kule arrimaha garsoorka laguna magacaabo Cabdullaahi Ilka Fanax golahaasoo ka koobnaa 9 garsoore Cabdullaahi Ilka Fanaxna uu madax ka ahaa saan eri horeba nasiib darro fursad lama siin golahaas isaga ah noloshiisii iyo xilkiisii iyo waajibaadkiisiina ma dhaafsiisneen ma gaadhin mid dhaafsiisan muddo 6 bilood wax ka badan hadda iyo wixii dana arrinkii ismaranwaaga siyaasadeed weli waa taagan yahay waxa lagu kala bixi karaana waa garsoor guud ahaan waxaa muuqata isla markaana cad
madaxweyne kasta oo Soomaaliyeed oo yimaada inaanu jeclayn in golaha garsoorkaasu oo lagu magacaabay ka hor golaha adeegga garsoorka ee dhammaan madaxdaas iyaga ah aanay jeclaysan aanay jecleen hay-ad garsoor oo noocaas oo kale ah oo arrimaha u xil saaran in la hirgeliyo. maxaa runtii ugu wacan arrinkaas isaga ah? waxa ugu wacan oo keliya ma dhaafsiisna in madaxweyne kasta uu jecel yahay inaan loo samayn xayndaab awooddiisa siyaasadeed oo ay noqoto awooddiisa siyaasadeed mid ka weyn awood kasta laga bilaabo garsoorka. waa sababtaas arrinka ugu wacan inaan la jeclayn in dalka laga hergeliyo golaha adeegga garsoorka. inta arrinkaas laga caagan yahayna uu meesha ka maqan yahay, laga heli doonona golaha adeegga garsoorka, isqa qabsigu sidaasu u sii socon doonaa. balse haddii hay-addaas iyada ee garsoor la hirgeliyo, waxaa hubaala isla markaana aad ogsoon tihiin daawadayaal in arrimuhu ku dambayn doonaan muuqaal fiican. tusaalena aan u soo qaadno iyadoo dalka Maraykanka loolankii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden ee ahayd maxkamadda dastuurigu oo ka kooban 9 xubnood, hay-adda keliya ee halkaa ka caabisay bulshaweynta ka caabisay ku tarafalkii iyo awooddii siyaasadeed ee madaxweyne isku dayay inuu adeegsado. nasiib darro inagu tiradii golaha garsoorka Maraykanka oo 9 ah baan ka qaadanay oo ka koobiyeysanay, balse nuxurkii garsoorka nasiib darro ma dhicin inaan ka qaadano. daawade ilaa intaan ku kulmi doono barnaamijka kale oo kan la mid ah, waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.